gudoomiyaha ku meelgaarka ee xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiqaadir Jideeye wafdi oo hogaaminayo ayaa soo gaaray magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Wafdigan xisbiga wadani ayaa isla markiiba gaarsiiyay dawooyin kala duwan cisbitaalka guud ee magaalada Burco. Dawooyinkan oo lagu talagalay dadka xanuunka shubanbiyoodka soo ritay waxaana kala wareegay iskuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer. Ugu horeyntii waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha ku meelgaarka ee xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiqaadir Jideeye. waxaan idinku nimi gurmad markii warkuna soo gaaray in hawshani hawl ka tan badan bahda caafimaadka ee Togdheer waxaanu go'aansanay intii karaankaya ah wixii aanu heli karro annagoo xisbiga wadaniya inaanu keenno oo ku tabarucno. Togdheer waa xuduntii Somaliland wixii ka dhaca Togdheer dalkoo dhan buu saameeyaa col iyo nabad iyo cudurba iyo barwaaqaba. marka waxaanu leenahay walaalaha iyaga halkaa jooga awdal iyo marodijeex iyo cusbitaalada private-ka iyo dhakhaatiirta tirada badan iyo shaqaalaha caafimaadka mid dawladeed iyo mid private-ba in loo soo gurmado Burco iyo Togdheerba waa hawl qaran. waxa weeye jihaad baa ku jirtaan bimacna kelima jihaadkaana in laydinku eega idinka keligiin maaha isu duwe. waxaanu doonaynaa inaad naga guddoonto hawsha iyo alaabta intaana kaga hadhi mayno. waxaan noo ballana inaanu dhawaaq dheer Somaliland oo dhan waxgaradkeeda culimadeeda tishaarteeda acyaanteeda inaanu gaadhsiino. waxa kaloo naga go'aana markaanu qaadanay baaxadda dhibaatadu intay leeg tahay iyo inay bahda caafimaadka ee Burco ka xog roon tahay waxaanu u soo jeedinaynaa baaq bahda caafimaadka ee gobollada galbeedka hadday awdal tahay iyo hadday marodijeex tahayba iyo hadday Hargeysa tahayba ee imkaaniyaadkoodu badan yahay ee dhakhaatiirta badani joogto ee neerska badani joogaan ee collegeska badan ee caafimaadku joogaan inay degdeg ugu soo gurmadaan gobolkan. xukuumaddu iyana bahdi hawsheeda waan u sheegi doonaa markaanu tagno dhibaatadana waanu la qaybsan doonaa waanu warbixinta waanu siin doonaa. iskuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer Dr. Yuusuf ayaa aad ugu mahad celiyay xisbiga wadani dawooyinkan uu soo gaarsiiyay. aad iyo aad ayaan ugu hadnaqay gudoomiye jirde Dr. Fadal Faadumo iyo dhammaan mas'uuliyiinta kale ee ka socota xisbiga wadani ee halkan noogu yimi soo dadaalay ee soo gaarsiiyay dawooyinka. waa waajib weyn saaran maaha waajib ma wax siyaasadaysan siyaasaddu ka mamnuuc markaan oo kale toomar gacanta is wada qabsanaa xisbi ma kala leeyin waxba ma kala leeyin gidigeen isku mid ayaynu nahay. qof kasto muwaadin oo reer Somaliland waxa looga baahan yahay inuu ka qayb galo hadba arrimaha degdega ah ama arrimaha muhiimka ee khuseeya ummadan iyo dadkan. Cabdirasaaq Koronto telefishinka caalamiga ee SAB magaalada Burco.